الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديلad lahantiina waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada kubadda cagta ee toddobaadkan. Maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa qaar ka mid ah ciyaartooyda ka soo jeeda qaaradda America ama Latin America kuwaasi oo ka dhashay ama ka soo jeeda qoysas sabool ah, waxaana inta badan aan rabaa inaan ku faaqida qaarkood. kuwaasi waxaanu kusoo koobay ciyaartooydaas 14 ciyaartooy oo magaca ku leh caalamkan maantana ah kuwa ugu magaca weyn ee qaaradda adduunkan aynu ku noolnahay iyo waliba qaaradda America. haddaba qaar ka mid ah ciyaartooydaasi ayaan kusoo qaadan doonaa. haddaba sidaan ogsoonahay, kubadda cagta waa ciyaar dimuqraadiyad ah oo qof waliba markaasi aad ku arkaysid inuu ka ciyaaro, ma lahan wax joojin kara ama tusaale ahaan midabka iyo diinta intaba waa uu ciyaari karaa, wax ka xadidayana ma lahan. dunidanne noloshu sideedu waxaad arkaysaa qaar ka soo jeeda dad ka soo jeeda famil markaasi ama qoysas qani ah iyo kuwa markaas ayaga ka soo jeeda qoysas sabool ah. haddaba fadlan, haddii aad inagu cusub tahay, follow inoo dheh page-ka, sina share garay, like-tana dhac ku dheh oo horey markaasi usii sheergaray. mahadsanid. aanu ku bilownay, waxaanu maanta miiska inoo saaran oo aanu rabnaa inaan ku jeexjeexno taariikh nololeedkiisa laacibka dunida ugu weyn ee maanta si weyn loo hadalhayo. haddaba waa kuma ka laacibkan oo aan maanta doonayo inaan markaasi halkan aan ku jeexjeexo taariikh nololeedkiisa waa Lionel Messi, ama kabiirka si weyn loo yaqaano dunida tan. waxa uu ku dhashay magaalada Rosario ee dalkaasi Argentina sanadkii markay ahayd 1987. Messi waxa uu ku dhashay xaalad dhaqaale xumo ah iyo sicir barar xun oo ka jira dalkaasi Argentina. tayadiisa ama waxtarkiisa iyo xirfadiisa kubadda cagta waxa uu soo bandhigay ama soo baxday 1995 markii heerka shaqo la'aanta ay ahayd magaalada Rosario ee dalkaasi Argentina 20%. fursadaha guusha aad bay u xadidnaayeen, hamigana waxa uu ahaa mid la hakiyay ama uu qofka la dhunto hamigiisa iyo xirfadiisa. ileen ma jirto cid u garaabayso haddii uu soo bandhigo qofka hamigiisa xilligaasi. si kastaba ha ahaatee, Messi ayaa ka hor yimid dad fara badan oo markaasi soo banaanbax dhigayay. inkastoo aabihiisu uu ahaa Messi nin ka soo jeeda ama ka shaqeeya biraha ayuu aruuriyaa waana tumaa sidaad u taqaanaanba. hooyadiina waxay ahayd mid nadiifiye ah ama nadiifiso kana shaqeysa guryaha dadka kale ay leeyihiin. markiiba da'diisu ay noqotay 11 sano, Messi waxaa laga helay cudurka qanjirada ee hormooniska koritaanka ka hor istaaga dadka bini'aadamka, wuxuuna u baahday ugu yaraan 600 oo pound lacag gaaraysa bishiiba in lagu daweeyo. dabcan qoyskiisu ma awoodi karin inka badan. intaa kadib, kooxo badan oo Argentines ah ayaa diiday Messi in ay markaasi siiyaan fursad. kaliya Barcelona ayaa u fidisay inay caawiso. dhamaadkii sanadii 2000 wuxuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Barca. ku dhawaad 20 sano kadib, Messi waxa uu ka mid noqday ciyaartooyda ugu qanisan adduunkan. inkastoo halyaygan uu hadda ka tagay kooxdiisii hore ee Barcelona oo uu adduunka ugu jeclaa, haddana waxaa ognahay in uu dunidan isaga ka horeeyo ay weli tahay mid aad u ballaadhan oo ifaysa. haddaba daawade, haddii aad inala soo gaartay ilaa iyo dhamaadka, fadlan inoo follow garay page-ka, sina share garay, horey like-ta ugu sii qabo. mahadsanid. halkan waxaa inoogu eg daawade taariikh nololeedkii laacibka adduunka qabsaday ee Lionel Messi. tan iyo intaa dib ugu kulmi doono iyo sheekadii xiisaha lahayd ee laacibkii xiga ee Neymar Jr. oo ka soo jeeda dalkaasi Brazil, waxaa idin leeyahay mahadsanidin dhammaantiin.